أنت ما قالني تروحون وأنا يسلا لكن ما قال تيجي بتبلا في سواكنا هذه مدينة أيوة فتيبة هنا كان ساسو خلنا مفرمس ما مفهوم مثلا ترسم maxaa ku dheen marka خاطر فحيل إسكان إسالة وحلا إليه نكال نيرفو إليه dhowr waxaan ku sugannahay hoyga magaalada muqdisho uu ka degan yahay gaar ahaan degmada wajir ee gobolka banaadir maxamed yuusuf oo ah aabba soomaaliyeed oo ka mid ah dadka garabaratada ee ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan degmadan 2023 bishii lixaad ayaa halkan waxaa loogu dilay wiil uu dhalay oo lagu magacaabi jiray nuur maxamed yuusuf aabbaha wuxuu nooga sheekeeyey sida dilkan u dhacay iyo dhacdooyinkii kale ee ka dambeeyey waxa uu tilmaamay nin isqariyey in halkan uu kaga qaaday mooto bajaaj oo una geeyey kooxa burcada oo ka koobnaa ilaa 6 xubnood oo dil u geystay waxa uu sheegay in hay'adaha ammaanka ay soo qabteen oo ay kala macaamileen qoyskii kooxahaas ay ka soo jeedeen oo lacaga duuga ay bixiyeen intaa kadib aabbaha wuxuu noo sheegay in cadaalad darro uu ka tabanayo hay'adaha cadaaladda ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka banaadir waxa uu sheegay in burcadii 6 baa fasaxay qaar ka mid ah meelaha laga fogeen ay ku galeen aroos oo ay ka mid yihiin dadka xaafadda ku nool madaxweynaha jamhuuriyadda hay'adaha garsoorka dhammaan taliska booliiska wuxuu ka codsaday in arrintani si degdeg ah wax looga qabto aabbaha Soomaaliga waxa uu sheegay naxdintu ka qaaday wiilkiisa iyo cadaalad darrada uu tabanayo in xanuunkan ku soo booday uga gacan u naafo ka yahay wiilkay waa 16 sano ayuu jiraa marka haddii ilaahay marka guriga meel oo baradka bakaaliya international wiilka xidkiisa ah ka waday nimanka u geeyey markuu dhex geeyna waa ka ortay wiilkii waa qaadnay bilisaa qaadeen waxay geeyeen CID-da waasoo wahaystay isbitaalka sambasi isbitaalka waa lasoo bixiyey kadib wiilkii waa la qabtay waan geynay saldhigan waa madiino saldhig waa la wareejiyey xagaarkii waa la xiray iyagoo xiran saa ogen iyagoo waxbana loo soo sheegin wiilashii waan sii daayay waan maqalnay wiilashii waa kuwaan intay joogaan waa lasoo daayey waan bixna haddaan baxnay waa tagay anigana madoonkaa tagnay waxaan tagnay meesha sababtaa u diisay maxaa waaye waxba anagaa takiinka ahdi u baahnana waa keeninaa idhaaheen waaye soo qabaa lihi wiilkii kan wiilkii baa soo qabtay mar labaad meeshii haddii aan la gelin maxkamaddii aan tagnay wiilkii waxaa layidhi iyoo xidan aan kasoo tagnay waan soo baxnay intaan imaanay kadib waxaan aragnay wiilkii oo lasoo daayo suuqsiyeed meeshaan ay lahaan iyo iska joog midna meesha aroos ku galayba marka sidaa maxkamaddii marlabaad u noqoni maxada ayaan dhahnay jariti markaasuu yidhi anagaa takiinka haddii loo baahdo waa la keenaa haya idinkana axaddii imaada axaddii aad tagnay haddana waxaa layidhi sabtii imaada waa tagnay haddana waxaa layidhi axaddii imaada noo celinayo waxaa la gaadhay sanadka maxkamaddii waa la xilaaliyey maxkamaddii markii fur-aan la gaarsiiyo waayahay sidaan ku aamusnay maxkamaddii haddaa furay aan maqanay marka nimankaa meesha haddii cadaaladda ay sheegto waa in cadaaladdeeda aan helnaa waa intaa marka adiga xanuunkan wiilkan inta la dili ka hor sidaa noogu xanuunsanay may wiilkii markii la yidhi ha gaaro sanadka hala gaaro markii la yidhi sanadkii usugan waa laga baxay maxkamaddii hadabaada intaa sanadka aan la furin aniga sheekadaan aaday haddaanka in gurigeyga waa iska seexday galabtii anafyoan saabay haddii aan soo kacayba dhulkan ku dhacay iskaalaan dhigay isbitaal laba isbitaal dhigay iskaalaan dhigay meel kastaa dhigay walaalaan dhigay welina waa kaa siyaanahay isaga daraadiis ayaan u xanuunsaday marka yaa cadaalad ka codsanaysa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud
iyo intii oo maaragtay madaxda oo joogta waddanka cadaaladdeena inaan helno ayaan ka codsanayna haddii cadaalad jirto. waxaa 24 maalmood ka dhimantaa bisha barakeysan ee Ramadaan. arrimahan waxay ku soo aadeen xilli dalka oo dhan dadka shacabka ay ka cabanayaan cadaalad darro hay'adaha kala duwan ee garsoorka. madaxweynaha jamhuuriyadda si degdeg ah u codsaday haddii muuqaalkan uu daawado inuu kaga soo jawaabo. maxamed Roolaay Somali TV magaalada Muqdisho. shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub.